dad badan oo waxaa jira isku daya inay miisaanka ku ridaan ayagoo isgaajeynaya haddii aan ku fududeeyana dadkeenan Soomaaliyeed waxay u badan yihiin qofka haddii aad wareysato dhahdo tusaale ahaan maxaa cuntaa inuu ku dhaho coach ama dictoreso aniga waxyaabo yaryaraan iska cunaa cuntada qofka uu isgaajeeya ama starvation mode oo galo maxay caqabado ku keentaa jirka qofka bini'aadanka gudaha iyo banaankaba si fiican aad u mahadsantahay su'aashan waa su'aal aad muhiim u ah starvation ama isgaajeysiska qofka inuu u adeegsado inuu miisaankiisa dhimo cawaaqib adag oo caafimaadka xaqiisa ah ayuu kala kulmaa ha ahaado waqti dhow ama ha ahaado waqtiga dheer intaba waa kala qaadaynaa marka waxaan ka hadlaynaa mid short term ama waqtiga dhow ah waxa ugu horeeya qofka uu la kulmaayo waxay tahay in tan ugu horeysa tahay waaba tii uu rabay inuu miisaankiisa lumiyo laakiin asagoo moodaya inuu dufan lumiyo bilcagsi waxay tahay wuxuu lumiyo waxa waaye biyihii jirkiisa ku jiray mineralska iyo macdintiisa waxa kale tuu lumiye waxa waaye murqihiisa oo muhiim u ahaa jiritaankiisa ama caafimaadkiisa tan labaad ee laga helayo waxay tahay oo gooni u sheegayno masal ama murqihi inuu qofka lumiyo energy-giisa iyo wixiisina inay meesha ka baxayaan tan saddexaad waxay tahay qofka ku imaanaysa in nafaqada jirkiisa ay ku yaraato laana waxaan sheegnaa cuntada badankeed nafaqada badankeed waxaan ka helnaa cuntada qofka haddii cuntada uu ka taga ama uu isbaahiyo waxa imaanaya mineralskiisa inay jirkiisa yaraadaan vitaminskiisa jirkiisa inay ku yaraadaan waxaasoo dhan waxay keenayaan qofka inuu cudurro degdeg ah waliba waqtigaas uu la soo kulmo tan xigta ugu dambaysa waxay tahay short term kan ka hadlayaaye slow metabolism wax loo yaqaan metabolismkiisna slow down sameeyo